Dibi ku nool beer ku taala gobolka Alabama ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu galay buugga dhacdada adduunka ee Guinness World Record. Waxaa loo diiwaangeliyay rikoodhka geesaha ugu dheer adduunka. Rikoodhkii horey u yaalay waxa uu ka sare maray 3 sentimitir oo qura. Dibigan oo lagu magacaabo Bonobo ayaa labadiisa gees waxay isu jiraan masaafo dhan 3.23 mitir, waana sida ay sheegtay jariidada The Sun ee dalka Ingiriiska ka soo baxda. Bonobo waxa uu ku nool yahay beer ku taala deegaanka Clearwater ee gobolka Alabama, meel u dhow bosteejada Birmingham. Waxaa iska leh qoyska Boom oo markii uu 6 jir ahaa soo iibsaday. Milkiilaha dibigan oo Guinness World Record ay wareysatay waxa uu ku sheegay inay dadku aad ula yaabaan dhirirka iyo sida ay u fidsan yihiin geesaha dibiga oo aad la yaab u leh. Waxaana uu sheegay markii uu dibigiisu 4 jir ahaa inuu aaminay inuu jabin karo rikoodhka dibiga ugu geesaha dheer adduunka. Dibigu hadda waa 7 jir. Bob waxa uu sheegay in dibigiisa Bonobo uu noqday xidig weyn. Dad badan ayaa sanadkii u soo daawasho taga oo u hamuun qaba inay marun arkaan labadiisa geesood. Dadkaasi waxay u keeneen karooto iyo tufaax. Waxa uu hadda noqday xayawaan dadka aan ka qaloon oo la qabsaday.